aniga hooyada iyo aabbahay saaxiibaan lahay ducadooda maanta heerkan taaganaa ku soo gaaray waxaan ahay double master waxaan ahay double badge aabbahay iyo hooyaday xilli ay waxbarashada iga bixiyaan waxa ugu dambeysay high schoolkayga high schoolkaygii kadib aniga isoo bushgareeyay caqabado badan aan la soo kulmay dad xun iyo dad fiican baan soo arkay saas ay tahay waxaan talada mar walba u laaban jiray aabahay hooyaday dhinaca dhowcilaha iyo markii la yar waa maqsha magac dhowcil ay igala tali jirtay xaliimooyinka aabban wuxuu igala talin jiray waxbarashada iyo dadka caqabadaha igu ah wuxuu dhigi jiray dhag ha u dhigin mar walbana waa ii duceey jireen ilaa dhibaato badan aan la soo kulmay 13 sano oo jira shaqo bilaab shaqadan bilaabayna waxa waa shaqadan hadeertan waa ka faanaaba ya shaqo lama dhigi kara taas laakiin waxay ii ahayd tababar hadda magaalada waxa ka jiro gabdho yar yar oo waxa jira inay waxbarashadoodii soo aadaan oo caqabad u ah faarax oo indha kale aan lahayn oo gabadhaas wadada ka habaajinayo ama waalidkii ku diraayo tan waalidka hadii oo meel laga bixiyo gabdhaha dhamaantiina waxaan gala hadlaa waalidkiina hadaad saaxiib ka dhigan bahaladu in cunayaan waalidka haday qaar waxa jira waalidiintii ay dhinteen oo waalidkii nooleen hadii walaalka ama walaasha saaxiib ka dhigan waraabaha uu ku cunaa marka badana saaxiibka gabadha laguma kalsoonaan karo hada in sheega waa ibn aadana leeyahay ilaahi subhanahu azza wa jalla qofkan bil aadinka xumaan ismaan buu la iman karaa marka asraarta horta waa la qarsadaa waalidkana hadaad sir walba ula cararto marka dambe wax xun oo loo cararaysaa way naxayaan waxna kuma dhihi karaan indhay taagtaagayaan ma iska deysid ay ku leeyihiin waxyaabaha qaar guusha lagu gaaro ee aniga aan ku gaaray oo maanta mansib wanaagsan ku joogo oo adoon aan ugu baahneen kule taariikhdeyda ma ka warqabtiin dhibaato badan aan la soo kulmay maanta dadkii dhibaateeyay oo dhan ilaahay iga aaray koow gabar ilaahay ku xirnaada tan koowaad gabadha hadaad shantaada salaad ilaaliso waalidkaadana aad baari u tahay adoon ku hor istaagi karo oo ku dhibaatay karo ma jiro wallahi يعني بارنمada ilaahay iyo baarinimada waalidka way isku xiran yihiin rida rabbi fi rida waliday wa saqata rabbi fi saqata waliday dad waalidkaaga ilaahay caradiisa u baahan tahay waalidkaaga ka caraysi hadad ilaahay farxadiisa u baahan tahay waalidkaaga ka farxi gabdhaha caqabado badan ay gaaro ani waxaan aaminsanahay gabar kasta way shaqeyn kartaa duruuf kasta way ka gudbi kartaa waalidkeedna way la saaxiibi kartaa maanta waxa laga yaabaa gabdhahan inay qaarkood nolol farxad leh ka soo wada baxeen ee waligood dib soo arkin gabar waxa jirta dad gurigooda talisa ka ah iyo mid loo taliyo iyo mid maalin walba dhahaysa habartaana ay dhibtay meel ma ka aadi karibo habartaa kuma dhibin adaa is dhibtay waayo habartaa waxay kula rabtaa gabar wanaagsan habarta aal kuliisatada gabadheedina fiicnaatay jecesha waa mid dabjirade marka habar balaayo hadaad aragto meel taagan waa laga cudubleystaa gabar balaayo soo ahayd marka adigoo gabar balaayo noqonin aad waalidkaaga waxa loo noqdaa baari cid kasta oo ku dhibaateynaysan dhagaha laga xirtaa keep going on labo ama abaya waxa igu sameysay wax wanaagsan waay 10 yihiin waxbarashada iyo noloshaada inaad hormariso qalbiga ka imaataa hada buug qaadato oo baxdid oo macalinka u tagtid iskoolka fadhiisatid maskaxdii ay ku maqan tahay meel kale ama faaraxa noqoto ama xaafado kale qalbigiina oo waxbarasho u soo jeedin hormar seeha adiga rabtaa waalidkaaga see ula tacaamuli kartaa see u nasiin kartaa waalidkaaga aniga waxbarashada waa ku soo dhibtooday shaqo waan ku soo dhibtooday xiriir saaxiib iyo walaal iyo kulli waxana dib soo arkin male maantane dadkaas oo dhan ima dhibaan ilaahay iga guuleeyo hooyaan ahay
caruur haysato waan shaqeeyaa waana la shaqeeyaa waalidkayga ducadiisa aan aaminsanahay iyo sadaqada inaan intaas ku gaaray maalin waxaa dhacday waxaan arkay aabbo waayeel ah aabbahaas waayeelka ah jidkuu taagnaa duruuf aad iyo aad u weyn ka muuqatay qof waa taqaanaa markuu u baahan yahay wajigiisa ma wanaagsana faruurihiisa xataa daray ahaayeen aabihii baabuuraan wada waanaag istaagay waxaan ku yidhi adeer maxaa qaldan uu hadli waayay ilan waa qof gaajadii ridatay oo meel fadhiistay aabihii markaan la hadlay la sheekaystay ilmo waxaa u jooga gabdho waxaa u jooga shanti ah iyo wiilal waliba ka sii daran waalidka macnihiisa dad aqoon ilmahaas gurigaan waday aabihii waa geeyey wuxuu u baahnaa in waan ka caawiyey gurigii aan taga ma xumee dabjiraa waa dhex fadhiyaba oo feero waaweyn adeer waxaan maxay ahaayeen adeer anaa dhaloo yiri waa caasiyaal adeer adiga waalidkaaga see ula tacaamuli jirtaan ku yiri ilaa meeshay ku jirtaa moogta qur-aankaa noo sheegaya wax walba adeer waalidkaagii adise isku heedeen ani waalidkayga ma soo korinin mana is arki jirin baadiyaha jiri jireen waana dhinteen waalidkaa xiriirka aad ka jaratay ilmaada kaa jirteen aan ku yiri waxba ha u shallayn ayakuna waxaan u sheegay waxaan ku yiri waalidkiin sida ula dhaqanteen kuwiina ka fisha waxaan ku yiri sida yeesha lagu yeelo waalidka ku duceeyaan marka gabdho halka talo in ku darsanayo waxay tahay maadaama barnaamijkan gadaal ka imaadeen wax badan ka fahansaneen wixii dhaafay gabar kasta waa ordi kartaa adoo ordaysidna waa ku fikirtaa hadaa kuftana waa kici kartaa horta taas inaa niyada gelisaan ku ilaahay la sheekaysta qolka adiga waa seexan kartaa soo ma habeenku waa bixi qolkaaga marka tagtid waa seexane telefoonka intaada qabsanin laba rakac salaatul haaja la dugtaa haday dhibaato ku hayso haddaad nimcaysan tahay laba rakac salaat shukriya la dugtaa haddaad faarax balansantihiin guurna laba rakac salaat istiqaara la dugtaa haddaad shaqo u baahan tahayne laba rakac salaatul haaja ama istiqaara la dugtaa ilaahu haday qeyr ii tahayna ii xij haday shar ii tahayna idaafi way marka heshid haddaad la adahayna ilaahu rabbi raxmaan oo tala adaan ku saartay isi shaqadaas markii aad ilaahay la sheekaysato wax badan boqolkiiba boqol way ku hagaagayaan waalidka waa loo tagaas wax kasta waxa la yiraahdaa aabi hooyo ii duceey ducadeen waxa aaminsanahay dhagax xataa doo iga hormaadin iga bixi burburin karto shukaansigan oo sanadkan jiran iska ilaaliyo gabdho yar yar aan aad ugu jeedaa mumkin waan way ugu weynaay kuwana waxa safkan isku la jirnay jaamacayaashan wada shaatiga wato ma wada wanaagsani ogaada wallahi dad badan oo waxa jira aan gooban ka shaqeeyo joogan maalin walba waxaan isku dagaalnaa naag fiican magaalada ma joogto warkaale kulli maada xumeys xalimooyinkan magaalada ordaaya maada wada xumeysoo wada xijaabka wadaan anda waxay yiraahdaan anaga ma xumeenin ayakaas xumeeyeen hadduu faarax ku soo waco waqtigaaga ka muhiimsan meel lagu balamiyaha aadin abaayo gabdhaha quruxda badan wax badan oo waxa jira dhibaato oo magaalada ka socota laana waxa mararka qaar jiri karto caqabado ah ina gurigiina qof kula kulmi karin caqabad ah inaadan guriga bi'ada deganta ku saamixay inuu qofku ugu yimaado laakiin haye walaal waa sarkeena insha Allah ana ku soo sheegay meel tag fadhiiso ku balami insha Allah bidmillaahi kariim gabdhayga quruxda badan ilaahay ha lagu xirnaado shanta salaad dad ilaaliso sharaftaadana ilaaliso you can keep going every day is new day abay waxaan ku leeyahay jaaniskaada ka faa'iideyso wajigaada quruxda badan hallominina salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si aad u heshid macluumaadka ka daahsoon fadlan saaxiib joogta la noqo xog bile